بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. sideed hanti ku dhisi kartaa? dabcan dhammaanteen waan jecelnahay inaan hanti aan yeelano, nolol wanaagsan aan dhisano. hantida rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa bixiya, addoonkoo doono ayuu siiyaa, balse waxaa lama huraan ah shakhsi walbo hanti raba inuu dadaal fara badan sameeyo. tawfiiqdan waa min cindillaahi subxaanahu wa tacaala. muuqaalkeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa oon ku falaqaynaynaa talaabooyin aasaasi waa dhisidda hantida. Roberto Kiyosaki waa qoraaga buugga caanka aabbaha hodanka iyo aabbaha faqriga ah oo markii ugu horreysay la daabacay 1997. wuxuu sanado badan ku bixiyey barashada sida lagu noqdo hantiile, laguna gaaro darajada hodantinimada, iyo sida loo aasaaso hanti dhab ah iyadoo laga soo bilaabayo meel libira. Roberto Kiyosaki wuxuu bixiyey 9 mabda' ama 9 talo oo aasaasi u ah dhisidda hanti fara badan. 9kan talo waxay si gaar ah u anfacayaan shakhsi walbo hamiya inuu hanti badan kasbado. mabda'a koowaad, inaad fahanto farqiga u dhexeeya hantida maguurtada ah iyo waajibaadka maaliyadeed ee ku saaran. mabda'an waa furaha hodantinimada. waxaa muhiim ah in marka hore aad fahanto farqiga u dhexeeya hantidaad sida shakhsiga aad u leedahay iyo waajibaadka adiga si shakhsiyan ku saaran. hantida waa wax waliba adiga aad leedahay oo qiimoodu kor u kacaya waqti kadib, ama aad ka helayso dakhli joogto ah sida dhulalka, saamiyada, guryaha dhisan oo aad tijaarka ka qaadanayso, ganacsiyada iyo wixii la midka ah. waajibaadkuna waa waajibaadka maaliyadeed ee adiga lagugu leeyahay ee aad sida joogtada u bixiso, sida kirada guriga, korontada, biyaha, shidaalka gaariga iyo deymaha kale. Kiyosaki wuxuu talo ahaan u soo jeediyey inaad kor u qaaddo hantidaada, aadna yareyso waajibaadka maaliyadeed ee lagugu leeyahay adigoo raacaya xeeladahan soo socda. xeelada koowaad, lacagtaada ku iibso waxaad dakhli ka heli karto. lacagtaad ku shaqayso intaadan wax kale ka bixin, marka hore waxaad meel ka dhigtaa 10% oo aad ugu talagelayso inaad kaydiso. marka ay lacag fiican kuu noqotona mashruucaad gashato. tusaale, bishii waxaad ku shaqaysaa $500, waxaad meel ka dhigtaa 10%. inta kaloo soo hartana ku bixi waajibaadka maaliyadeed ee lagugu leeyahay. 10% haddii aad kaydiso, bil walba waxaa keyd ku ah $50. dhowr bilood keydso lacagtaas, kadibna waxaad gashataa mashruuc qof aad si fiican u taqaano oo aad ku kalsoon tahay u wado. mashruucaas ha aado dukaan bagaash, carruur dhar lagu gado, ama waxyaabo kale. almuhim meel bil waliba dakhli joogto ah kaa soo geli karo inay ahaato. marka sidaas waxaad ku haysataa bil walba 2 meel oo aad dakhli ka helayso. mid waa shaqada caadiga aad ka shaqayso, midda labaadna waa meesha aad lacagta ku darsatay. faa'iidada aad ka hesho mashruucaad maalgashatay ha cunin ee waxaad sii gelisaa mashruuc kale. sidaas waxaa kuugu sii badanaya ilaha dakhli ee ku soo gala. mar walbo ilaha dakhliga ku soo gala ay bataan, waa mar waliba aad hanti badan kasbato. xeelada labaad, yaray waajibaadka maaliyadeed ee ku saaran. si aad u yareyso waajibaadka maaliyadeed ee ku saaran, waxaa lama huraan ah inaad isku beesgarayso dakhliga bishii ku soo gelayo iyo midkaad bixinayso. markaad bishii ku shaqayso $500, waxaa waajib kugu ah inaad samaysato nidaam aad ku bixinayso lacagtaas. hana iloobin inaad 10% keyd aad dhigto. waxaa kaloo muhiim ah inaad ka fogaato deen oo dhan, sababtoo ah shakhsiga waxaa faqriga u horseeda waa deenta badan. xeelada saddexaad, waajibaadka maaliyadeed ee lagugu leeyahay. urug ama u beddel hanti aad adiga leedahay. mararka qaarkood waajibaadka adiga lagugu leeyahay waxaa loo beddeli karaa sida hanti adiga aad leedahay oo kale, dakhliina aad ka helayso. tusaale, inaad shirkad heshiis aad la gasho, kadibna ay kuu maalgeliyeen mashruuc aad is leedahay faa'iido badan ayaad ka heli kartaa. sidaasna shirkaddii aad bil waliba lacag u qorshayso, adigana mashruucaas uu kuu noqdo meel dakhligaas soo gala. mabda' labaad, barashada sida lagu kasbado lacagta. Mr. Kiyosaki wuxuu xooga saaray faa'iidada ay leedahay in la barto arrimaha dhaqaalaha iyo hagaajinta xirfadaha lagu kasban karo lacagta, sida akhrinta buugaagta ka hadla dhaqaalaha iyo ka qayb qaadashada aqoon isweydaarsiga iyo tababarada ku saabsan dhaqaalaha. aqoonta maaliyadeed waxay ka caawinaysaa inaad si fiican u maamusho lacagtaada iyo inaad ka faa'iidaysato fursadaha naadirka ah ee suuqa. hababka ugu wanaagsan ee lagu kobcin karo hantidaada waa inaad kordhiso aqoontaada maaliyadeed. mar walbo aqoontaada dhanka dhaqaalaha ay ku siyaado, waa mar walbo ay sii kobcdo awooddaad ku dhisi lahayd hanti fara badan. mabda'a saddexaad, inaad yeelato hadaf maaliyadeed iyo qorshe aad ku xaqiijin karto hadafkaas. Kiyosaki wuxuu tala'aan u soo jeedinayaa inaad yeelato hadaf dhaqaale oo aad rabto inaad gaarto. tusaale, inaad degsato qorshe ah sanadkan waxaan rabaa inaan soo xarayo $25,000 insha Allah, kadibna aad ku dhaqaaqdo fulinta qorshahaas. mabda'a afraad, inaad iskaashi la samayso dadka ganacsiga ku wanaagsan.
inaad la saaxiibto dadka guulaha ka gaaray ganacsiga iyo dhaqaalaha waxay ka caawin kartaa inaad ka hesho khibrad badan iyo aqoon dhanka ganacsiga ah. Sidoo kale inay kuu siyaado xirfadaada ganacsi iyo inay kugu dhiirigeliyaan inaad hadafkaagaadan ka quusan. Mabda'a shanaad, iska ilaali cabsida badan iyo damaca badan. Kiyosaki wuxuu kugula talinayaa inaad si caqliyeysan ugu fikirto mar walba oo khataraha ay ku soo wajahaan, oo aadan ogolaan cabsida iyo damaca badan inay xakameeyaan go'aanadaada maalgashiga. Go'aamadaada dhaqaale waa inay ku saleysnaadaan xog dhab ah iyo cilmi baaris dhammaystiran, halkii ay ku hogaamin lahaayeen damaca iyo cabsida. Mabda'a lixaad, maalgashiga naftaada. Kiyosaki wuxuu talaan u soo jeedinayaa in shakhsiga uu maalgeliyo nafsadiisa isagoo kor u qaadayo xirfadiisa shakhsiyadeed iyo xirfadiisa shaqo, sida awooddiisa hogaamiyenimo iyo wadaxaajoodka dadka kale. Markay ka wada hadlayaan umuro ganacsi, shakhsiga inuu naftiisa horumariyo waxay ka saacidaysaa inuu kordhiyo fursadiisa guusha ee ganacsi. Mabda'a toddobaad, inaad abuurto dakhli joogto ah. Kiyosaki wuxuu kugu dhiirigelinayaa inaad samaysato meel aad ka hesho dakhli joogto ah adigoon wax shaqo ah qaban, sida inaad guri aad gadato kadibna aad kirayso bil walba lacag aad ka qaadato, iyo sidoo kale inaad mashruucyada yaryar aad ku darsato lacag kadibna bil walba aad ka qaadato faa'iidada lacagtaas. Dakhliga noocaas oo kale ah wuxuu ku siin karaa xorriyad dhaqaale iyo fursad aad si degdeg ah ugu noqon karto hantiile. Mabda'a sideedaad, maalgashiga hantida maguurtada ah. Kiyosaki wuxuu aaminsan yahay in maalgashiga hantida maguurtada ah ay tahay waddo fiican oo hanti lagu kasban karo. Mabda'an wuxuu wax yar ka duwan yahay mabda'i toddobaad ee aan ka soo hadalnay, kaasoo ah inaad abuurato dakhli joogto ah oo degdeg ah. Mabda'ani wuxuu ku salaysan yahay maalgashiga muddada dheer, sida inaad dhul gadato dhowr sano kadibna dhulkaas aad sii gado si aad ugu hesho faa'iido fara badan. Mabda'a sagaalaad oo ah mabda'a ugu dambeeya, mabda'a dulqaadka iyo adkeysiga. Dulqaadka, sabarka iyo adkeysiga waa furaha guusha dhaqaalaha. Hanti fara badan si degdeg ah laguma kasban karo. Inaad hanti badan aad kasbato waxay u baahan tahay waqti iyo dadaal dheer. Waxaa lama huraan ah inaad u soo adkaysato fashilka iyo khasaaraha kugu dhacaya, sababtoo ah waad aragtay cunuga yar markii saas loo dhalo hore kama ordo. Sidaas si lamid ah ayuu ganacsigana yahay. Waa inaad sabar badan muujisaa, waa inaad wax badan dulqaadataa, waa inaad dadaal badan aad samaysaa, waa inaadan isjiibin inta aad hadafkaaga ka gaarayso. Guul ayaan idin rajaynayaa. Asalaamu calaykum.